tiradii 12 xubnood ahaa ee ku guuleystay baarlamaanka inay ku metelaan jamhuuriyadda Soomaaliland gobolka Sanaag. tirada guud ee codeysay waxa weeye guud ahaan baarlamaanka oo codeysay waxa weeye 57256. tirada oo codeysay xisbiga UCID waxa weeye 22950. tirada oo codeysay xisbiga kulmiye waxa weeye 24720. tirada oo codeysay xisbiga wadani waxa weeye 28585. xisbiga tirada kuraasta lagu guuleystay si sax ah oo aan jajab ahayn waxa weeye 10 kursi. xisbiga UCID wuxuu ku guuleystay 3 kursi. xisbiga kulmiyana wuxuu ku guuleystay 3 kursi. xisbiga wadanina wuxuu ku guuleystay 4 kursi. guud ahaan tirada sida saxda loogu guuleystay aan jajabka ahayn waxa weeye 10 kursi. xisbiga UCID kursiga koowaad waxa ku guuleystay Cumar Jaamac Faarax Axmed. kursiga labaadna waxa ku guuleystay Saciid Mire Faarax Giire. kursiga saddexaadna waxa ku guuleystay Jaamac Axmed Oogle Canaboode. xisbiga kulmiye kursiga koowaad waxa ku guuleystay Saalax Maxamed Diiriye Xujaale. kursiga labaadna waxa ku guuleystay Maxamuud Saalax Cabdi Axmed. kursiga saddexaadna waxa ku guuleystay Axmed Cabdi Ducaale Walhad. xisbiga wadani kursiga koowaad waxa ku guuleystay Khadar Cali Xasan Maxamed. kursiga labaadna waxa ku guuleystay Saleebaan Diiriye Barre Cali. kursiga saddexaadna waxa ku guuleystay Mubarak Muuse Ismaaciil Xuseen. kursiga afraadna waxa ku guuleystay Saciid Jaamac Xasan Maxamed. guud ahaan tirada kuraasta ee sida aan jajabka ahayn loogu guuleystay waa 10 kursi. labada kursi ee soo haray sida xeerku dhigayo waxa qaadanaya labada xisbi ee ugu bata tirada jajabka. tirada jajabka waxa ugu badan xisbiga kulmiye wuxuu ku guuleystay 1 kursi. waxa ku xiga xisbiga wadani oo xagga jajabka ku soo xiga isna wuxuu ku guuleystay kursigii labaad. kursiga jajabka ee xisbiga kulmiye waxa ku guuleystay Ibrahim Cali Jaamac Suudi. kursiga jajabka ee xisbiga wadanina waxa ku guuleystay Cabdikariin Meecaad Isaaq Xuseen. guud ahaanna 12 kursi sidaas loogu kala guuleystay. aakhirkii waxaanu ku guuleysanay inaynu soo saaro xildhibaano golo deegaan iyo xildhibaano golo wakiil ah. xildhibaano lagu metela magaalooyinka, degmooyinka iyo caasimadaha, iyo xildhibaano golo wakiil oo lagu metela qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo sharci dejin ah. waxaan aad ugu mahadnaqayaa shacabkii soo doortay xildhibaanada halkan laga dhawaaqay gudoomiyaha gobolka ee komishanka qaranku ayaan u mahadnaqayaa ee safafka u galay ee kaarka u qaatay ee loo soo raray ee loo sii raray ee u haraaday ee rafaadka iyo tiiha dheer u galay ayaan halkan uga mahadnaqayaa. waxaan u mahadnaqayaa komishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo winagala joogo komishaneer Cabdiraxmaan Dixood oo runtii ah howlkar maaha markii koowaad uu halkan yimaado ee uu ka qayb galo doorashooyinka qaranka. waa markii labaad uu halkan yimaado doorashadii uu ka qayb galo doorashooyinkii qaranka. gobolkana waa gobol weyn boqolkiiba 9 aan ka yarayn Soomaaliland uu ka yahay. gobolka intaa leeg baaxadda leh bedka leh ayuu komishaneer Dixood u bareeray inuu ka qabto doorasho one man one vote. doorashadii way dhacday, raggaasaa ku soo baxay ama golo deegaan ha ahaadeen ama golo wakiil ha ahaadeen. dardaarankan halkan caawa ka odhanaya waxa weeye qarankan hadba wax koox ama in baa dhaamisa oo u adeegta qaranka. inta hadda ku guuleysatay kuraasta ee golo deegaan ah ee golo wakiil ah waxaa laga rabaa inay wax ka bedelaan amba ay kasii qaadaan halkii la taagnaa ummaddu taagnayd, hadday magaalooyinka tahay iyo hadday tahay sharci dejinba. waxaa laga rabaa in ay keenaan qofku inta la doorto oo umadi doorato ku dhabar jabto inuu meel iska fadhiyo oo meel iska taagnaado ma aha. waxa weeye inuu ummadiisii iyo deegaankii laga soo doortay uu wax ku biiriyaa, wax ku taraa.
aad iyo aad waxaan ugu hambalyeynaya caawa aynu halkan kaga dhawaaqayno xubnihii baarlamaanka ee 12 ahaa iyo dadka ku guulaystay xisbi kasta ha ka soo baxaan waxaan leeyahay hambalyo waxa weeye guul nabadgelyo ku dhacday nabadgelyo ku dhamaatay dee ragga soo sharaxay dhammaan nin waliba inuu dhaco iyo inuu soo baxo labadaba uu ku talagalay labadabana wuxuu ugu dadaalayay horumarka ictiraaf raadinta qarannimada iyo dhisidda jamhuuriyaddan curdinka ah kii soo baxayna xil baa saaran kii aan maanta soo bixinna berruu soo bixi doonaaye isna waxaa saaran inuu hareerta la qabto ka qayb qaato sidii uu magaranaysaa uu gacan uga qaban annagu runtii aad iyo aad ayaanu u faraxsannahay caawa maadaama aanu haldheeridana leenahay weliba haddaanu nahay xisbiga waddani aad baanu u faraxsannahay laakiin farxaddayadaas waxaan la qaybsanaynaa ta shacabka reer somalilan oo dhan raggii runtii aad iyo aad noola shaqeeyey oo aan hebel aanan u soo koobi karaynin maxaan ku dhahdaa raggii la socday oo ka mid ahaa yuusuf oo la socday komishineer cabdiraxmaan dixood guud ahaan shaqaalihii ka shaqaynayey hadday ahaayeen dhallinyaradii jaamacadda hadday ahaayeen dhallinyaradii muraaqibiinta ahayd ee goobaha fogfog ee haraadka iyo bacadka uu jiro tegayey hadday ahaayeen maxaanku idhaahdaa dad ciidankii booliska iyo militarigaba lahaa ee nabadgelyada sugayey dhammaan shacabkii ka qayb qaatay iyo maxaanku idhahdaa ciidamadii qarankee ka qayb qaatay doorashadaaba waan hambalyeynayaa waanaan u mahadnaqayaa jasaakumullah khayr baan leeyahay ilaahay subxaana watacaala ha idinka abaalmariyo wixii aad gashateen qarankiina iyo dadkiina ayaan leeyahay waxaan yididiilo badan iyo rajo badan iyo farxad badan ka qabaa inay jamhuuriyadda somalilan noqoto mid maalinba maalinta ka dambaysa halka ay joogto kasii korta kasii wanaagsanaata aynuna ka mid noqono adduunyada dowladaha la ictiraafsan yahay ee UN-ka ku jira inagoo maanta maxaan ku dhahdaa ay inoo dhan tahay doorashaduna ay tahay aan isleeyahay tii certificate-kii ugu dambeeyey ama shahaadadii ugu dambeeyey aynu ku qaadan lahayna aynu ugu gudbi lahayn ictiraaf sidaad aragtaan imika waa salaadii subax ayaanu ku dhawaaqnay waa habeenkii shanaad aynu soo jeedno ee ragga tacabkaa geliyey doorashada waa dhallinyarada qaranka u shaqaynaysa rag iyo dumarba leh aad baan ugu mahadnaqayaa doorashaduna waa inoo guul maaha xisbi waxaynu hambalyeynaa waa qaranka somalilan ayaynu maanta sumcadu soo jiidnay doorasho nabadgelyaha inoo dhacday oo qarankeenu qabsaday taasaa qof walba guulu ah qof kastoo reer somalilanah waxaa guulu ah sharafta qaranku helay iyo sumcaddaynu soo hoynay taasina wax lagu farxo ilaahay loogu mahadnaqo anigu waxaan hambalyeynayaa kuwa soo baxay musharaxiinta ama xildhibaanada soo baxay waxaan ka horreysiinaya oon hambalyeynayaa raggii tacabka galay ka tacab badnaa kuwa soo baxay ee haddana soo bixi waayey mana odhanayo way dhaceen oo dee nina codkiisa kuma soo baxo tacabkii la galay ee tiam weeg lagu galay wada jir ragna way ku soo baxeen ragna way ku waayeen marka mar haddii waxaagii cid wax ku heshay oo aan wixiiba khasaarin dee waa alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay intii la weyday halka jeclada inay tagto cawl khayr qaba ha siiyaan hana ogaadaan codkoodii dad baa ku soo baxay oo waa isjiidkaasunba hashu hadduu qof loo istaagay haddii qof ris buu bixiyeen markaa raggaasina codkoodii ragga soo baxay baa ku soo baxay kuwa soo baxayna waxaan kula dardaarmayaa ummadda tacabka intaa leeg idii gashay ee idii codaysay ee rajadayda ku qabta inaa u shaqaysaan waxaan caawa oo saacad damba tahay xakan lagaga dhawaaqay golaha wakiilada xubnihii ka geli lahaa gobolka sanaag waa ilaah mahadii inuu suuro geliyey inaynu waqtigan iskugu nimaadno inay guul noogu dhammaato natiijadiina aynu kaga dhawaaqno xafiiskan gobolka ee komishinka doorashooyinka ee gobolka sanaag walaalayaal waa farxad runtii weyn maanta waxaanu suuro gelinay oo somalilan u suuro galay inaynu golihii wakiilada oo 15 sano fadhiyey maanta aynu kuwii bedel lahaa ku dhawaaqnay runtii caalamku in badan buu inala yaabayay 15 sano
deg baarlamaan iska fadhiya laakiin caawi suuro gashay in lagu dhawaaqo badi gobollada iyo degmooyinka natiijooyinkii hordhac ahaa ee deegaanka iyo golaha wakiilada runtii waxaan taana suuro geliyey saddexda xisbi qaran oo maanta gacmaha isqabsaday kuna tashaday inay hirgeliyaan doorashadaas ku sidkan oo xaqiiq haddii xisbiyadu soo kala horjeedi lahayn maanta suuragal anigu uma arkan inay suuro gelaysa laakiin wadajirka ay ku iyo dowladda somaliland runtii u bareedhay inay wixii qarasha ay u bareedho waan u mahadnaqaynaa madaxda xisbiyada halkan waxaan kaloo ugu mahadnaqayaa saddex xubnood ee task forceka ee xisbiyada nagala socda oo iyaguna habeen iyo maalinba na garab taagnaa haddaan heer qaran nahay iyo haddaan heer gobol nahay iyo haddaan heer degmo nahayba kuna dadaalay inay ummadda ku nool gobolka sanaag si fiican u baraarujiyaan na garab taagnaa dariiq waloon maraynaba waxaan kaloo u mahadnaqayaa dhallinyaradii jaamacadaha ee ka qayb galay ee hablo iyo namaba lahaa ee goob walba iyagu tegey iyagoo aan haysan duruufihii ay ku noolaayeen dee oo u gaajooday u dhibaatooday boodh u maray runtii mahadnaq weyn bay leeyihiin waxaan hubaa inay 99% ay ku dadaaleen natiijooyinka doorashada ay qabanayaan inaanay wax lexleexada aanay gelin waxaan kaloo u mahadnaqayaa ciidamada amniga oo iyo nabadgelyada si fiican u ilaaliyey shacabkii iyo dadweynihii gobolka sanaag ee si fiican u codeeyey iyagoo aan wax buuqa iyo wax qayla ah aan samayn waxaan hubaa in doorashadan ka dhacday maanta somaliland caalamka meelo badan si fiican loogu daawanayo in qiimeyn fiican la qiimeynayo in la qiri doono inay ahayd doorasho xor oo xalaala mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadnaqaynaa howlwadeennada commissionka ee heer gobol iyo heer degmo ee ku sugan gobolka sanaag iyo degmooyinkooda runtii horena waan u sheegay waa markii labaadan gobolka sanaag doorasho u yimaado mar waxay ahayd 2010 oo doorashadii madaxtooyada maanta oo golihii wakiilada iyo golihii deegaanka la qabanayana waxaan ku suganahay gobolka sanaag aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dadweynaha gobolka sanaag ee suuro geliyey inay si fiican oo degan u dhacaan doorashooyinka aan anugu kulleyba aan ka mas-uulka ahaa gobolka waa mid aan u hayn doono runtii waxaan ku faraxsanahay in caawa natiijadii hordhac ahayd ee golaha wakiilada xakan lagaga dhawaaqay oo guddoomiyaha gobolku